الحمد لله ما هذا ودن إلهي بإسكاله إلهي بينو ما هذا نقينا ما هذا إلهي كسكو وحن هاد علينا عيد كاستا أو مساجد كان أي ما أنت تشوفونه قروح ديسة أدمودي سيدكوي أي عالم ككدا وينترني أو عندها ومدة الصومالية مركا يداودان أي كوات كان الصوم مساجد كان ولا سعانون عيد كاستا أو عارفين يأدون يفكر يتلاقوا درستيبا وهو مهد علينا وحنو دعينا الله هون حريستو حاجي علي بره dadka ugu horeeyo oo asaasi masjidka iyo cid kasta oo arin iyo adduunka geysatay oo ugu horeeyo culimada uu hogaaminayo Sheekh Maxamuud Xaliike oo sida la soo sheegay ilaa maanta iyo maalintii uu bilowday u bareeray isu taagay isaga iyo culimada kale ee deegaanka oo garab ku siinayaba inuu maanta halkan soo gaaro iyagana oo mahad celeeyna waxaan leeyahay Sheekh Cabdiwaaxid mar labaad buu ku soo noqon doonaa may waxa uu fadhiyay Sheekh Cabdinaasir gudoomiyihii waxaan sheekhana ka codsanayaa intaan wasiirku inoo soo xidhin inuu mar labaad u duceeyo culimada deegaanka iyo dadka deegaanka iyo cid kasta oo masaajidkan gacan ka geysataba in mar labaad loo duceeyo sheekhana ka codsanaya Sheekh Cabdinaasir ilaahay maanta hortii waxaynu u taaganahay wax ilaahay loogu mahadnaqo ilaahay baa mahadda iskale ilaahay baa mahadda iskale ilaahay baa mahadda iskale inoo fududeeyay maanta gurigiisii masaajidkiisii inaynu sida u qurxino u dhisno u hagaajino marka aad ilaahay aad raali geliso ilaahayna wax allaala wixii wanaagay aad u baahan tahay buu ku fududeynaya soo inoo sheegay marka ilaahay waxaynu ka baryaynaa maanta gurigiisii baynu saa u qurxinay inuu isna arrimaheena dhan inoo hagaajiyo waxaan hambaliyaynayaa shirkadda Faynuun oo masaajidkan quruxda badan inoo dhistay iyagana waxaan leeyahay ilaahay shirkadda ha barakeeyo ha barwaaqeeyo ha horumariyo Soomaalida xukuumadda ahmaada wixii indha arkaan baailka gooyaan shirkaddu qiimaha ay leedahay maanta masaajidkaas ay noogu filan waxaan kaliya u soo jeedinayaa ummadda ama shacabka ku cibaadeysanaya masaajidkan saddex qodob kaliya inooga baahan yahay number 1 in aynu soo camirno oo masaajidka waxa loo dhisay in ilaahay lagu caabudo in ilaahay ku caabudno labo in aynu xanaanayno oo dayactirkiisa iyo nadaafadiisa iyo ilaalintiisa aynu ka shaqeyno xitaa waxaan soo jeedin lahaa qofka isaga waysa qabin yimaade masaajidka ku weysaysta inta badan roogaga waxa ama uskageeya ama inuu markiiba duugooba jilciyo waa biyaha qoyan ee la soo galayo qofku inuu dabada isku soo qalajiyo isoo qalalan gudihiisa soo galo si maalin walba quruxdiisa 10 sano kadib hadii Allah idmo aysan waxba inooga nusqaamin sida uu sheekhu sheegayna shaqaalaha masjidka loo dhigan uglaado baan soo jeedinayaa wixii masaajidku isbixin waayay kharashkiisa ka siyaadana aynu magaalo ahaan iyo ummad ahaan aynu ka warhayno intaas ma soo jeedin lahaa mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta oo masaajidkan isu taagtay oo ay gudigu Maxamuud Xaliike ugu horeeyo faarax ku jiro Saciid Elchi ku jiro iyo shirkadda culimada deegaanka dhammaantiin waa idin mahad celinaya inta odaga Yuusuf dhagaweyne waa la qabaayo Soomaali waxaynu dheernahay culimadaynu dheernahay ilaahay culimada ha inoo barakay dawladnimadana aynu maanta ku naaloonayno culimadeenu base bay u yihiin markaynu hoos wada hadalno marka waxaan leeyahay ilaahay culimada ha inoo barakeeyo ilaahay dadkeena oo dhan ha inoo barakeeyo isku tashigu wuxuu leeyahay quruxdaas uu leeyahay iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa si uu ugu soo dhaweeyo hadhow wasiirka cadaaladda inuu ugu duceeyo Sheekh Cabdinaasir gudoomiye soo dhawow